habeennimadii xalay ahayd ayaa halkan waxaa lagu soo gabagabeeyey munaasabad ballaaran laguna taageerayo looguna ducaynayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii 8 February bishan aynu ku jirno 2017 sanadkan lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dunida oo dhan meel kastoo ay joogaan dadka Soomaaliyeed ayaa waxay u dhigeen munaasabada noocan oo kala ah haddaba jaalliiyadda Minneapolis oo ah jaalliiyadda ugu badan Soomaalida ee qurbaha ayaa waxa ay ku qabteen Minneapolis Convention Center xafladan aad arkaysaan xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay culumaa diin aqoon-yahano dhalinyaro ururada haweenka dhammaanna waxa ay si toos ah u wada taageerayeen dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafladii ayaa sidan ku bilaabatay xafladan waxay ka duwan tahay xafladihii hore ee la qaban jiray waxaad arkaysi doontaan qaabka aan wadno inay ka duwan tahay barka koowaad xafladihii caadiga ah la qaban jiray waxaa lagu ciyaari jiray wax muusik dadkeenu gaajaysan yahay abaarta ay ku jiraan biyo dhaamis ay ku jiraan gaajo ay hayso inaan halkan ka dabaaldegno oo aan muusik iyo aan isku raaxno waxay nala noqotay wax ceeb ah sidoo kale munaasabadan waxaa ka soo qayb gashay Amy Klobuchar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ka mid ah senatarada dalkan Mareykanka and I have 3 things to say Danta, Dalka and Dadka It wasn't too hard they were right up there and which you know means for our nation for your country for the people As you know, we are home to the largest Somali population in the United States, and we are so proud of that fact in Minnesota. Ummadu gobol walba iyo degmo walba ay u mudaharaatay soo dhaweysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hambalyaan u diraynaa walaalayaal Xasan Cali Khayre wiilka dhalinyarada ah ee Soomaaliga mutaxallimka ah ee loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya asagana waa soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waan ayinsanahay arrinta aanu nimid waxa ugu muhiimsan taageerada dawladda ka sokow abaaraha marka culimadu wada joogaan hadii la kala noqdo si fiican loo qayb qaato waan rajaynaynaa walaalayaal dawladnimada waxa ay tahay waa shacab isku duuban oo sidan oo kala ah dawladnimadu ma aha in xoog iyo khasab iyo taangi iyo baabeel la isku maqooniyo maaha waa dad Soomaaliyeed oo sidan u qurux badan oo intay isu yimaadeen qulubtooda isu furay A huge congratulations to the new president of Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo Mohamed Abdullahi Farmaajo Somalia hanulato Somalia hanulato Magaiga wa Jacob Fry Mufiante Parshonexen Waligin Ma'araktin Will Adan or of Somalia Kohadayo Ano u mahad celinaya guddigan sharafta leh ee har iyo habeen ilaa 2 bil ka soo shaqeynaya barnaamijkan waxaan farayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dawladda in la shaqeeyo dawlad la'aan ku jiri kari mayno sababta hadda dawladda Mareykanka ee Soomaaliya todobada dal ee baanka lagu soo kaxay ugu dartay waxay tahay dawlad la'aan baanu nahay dawladdeena hal la taageero caawa inaan gurigayga seexdo iyadoo hooyo ay baahan tahay ilma gaajo ay u dhimanayaan abaar ay jirto inaan sareeraheena ku raaxaysano in wadaadka la yiraahdo meelahan oo kale ma yimaado waxaa nooga weynaatay inaan codkeenna iyo dhiirigelinteena gaarsiino inaan Soomaaliya gacmaha iswada qabsano ka gudubno qoqobkii wadaad gooni lagu xiro guddiga ka soo shaqeeya habeen iyo maalin xafladan oonan seexan iyo shacabka Soomaaliyeed oo ka soo qayb gashay sida culimada waxgaradka dhalinyarta odayaasha iyo haweenka Soomaaliyeed oo qayb libaax ka qaatay xafladan sacabsiga bayada xusuusta la murtida galka ka ingaasho anu galo waxaan maanta rabo gamay diiday gumaystahan haysta wadnaha galow ka yeersiiyey
قمما يجير نركا قرمات كسوما قربا مليون غادا جيري موشيكي عياي مسوق والله بحيو موشيكي هوراي مدحدنا انطورني مكاني لاوي madaxweynihii hore ee Soomaaliya dawladii Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dawladiisii sidoo kale inaan u mahad celiyo waxaan aaminsanahay baarlamaankan maanta yimiday waa baarlamaanka kaliya oo Soomaaliya u yiliya shacabka Soomaaliyeed baarlamaanadii hore wayna qiyaami jireen laakiin kuwaanu si daacad ah noogu yiliyaan waan u mahad celinayaa sidoo kale my 13-year-old maalinta hore wuxuu daawaday cajalad yar oo YouTube-ka iyo caruurtii ku daawadeen iskoolka Farmaajo igeeya guriga wuxuu yimid asagoo hooyo Farmaajo igeeya 13-year-old Soomaaliya burba maanta inuu aado ilaahay waxaan ka baryaa inuu noqdo madaxweyne Farmaajo midkii anaka dhammadeen lahaa ilaahay baa qadaray dabcan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala bay ku ahaatay laakiin 12 qof buu la tartamay intii magaciisa la raadiyay oo xildhibaanadu u soo raadiyay ka baareen baa loo food gareeyay waxaan aaminsanahay inay abaal maaragtay ka turjubeen abaal weyn ay ku leeyihiin laftigooda xildhibaanada annaga aan ka mid nahay waxa balan naga baarlamaanka tobanaad waxa balanka ah in adii ilaahay 2020ka aanu gaarsiino wadanka hal qof iyo hal cod xafladan ayaa ahayd mid aan caawa aanay ka soo qaybgelin fanaaniinta Soomaaliyeed sida looga bartay waxaana loo aaneeyay abaaraha dalka ka jira aawadeed inaan caaway halkan lagu dhigin heeso awil nuur shire Somali Cable TV Minneapolis